kasto aad joogtaan waqti badan ma hayo waxaan rabaa inaan barnaamijka hore ka galo xogihii ugu dambeeyay baan rabaa inaan update gareeyo xaaladda galbeedka gobolka Mudug oo xilligan lagu kala calaf qaaday mataqaanaa maleeshiyaadkii nabadiidka ahaa ee galbeedka Mudug la doontay fidnada iyo dhibaatada oo si xun loogu jabiyay meydadkoodii oo ay uga carareen goobihii lagu dagaalamay maygaagta oo ah goobta maanta dagaalada qaraar ee dhowr jeer la isku soo laalaabtay ay ka dhaceen oo si xun ay ugu jabeen waxaan rabaa inaan halkaan kula wadaago shakhsiyaadka argagixisada ah ee ka qayb qaadanaya dagaalkan ee colaadan hurinayo ee u diidan galbeedka Mudug in nabad dadku ku wada noolaadaan oo nabad geelashu ay u wada cunaan naqa oo diidan dadka reer guuraaga ah ee ehelka ah ee xigtada iyo xigaalka ah inay nabad ku wada noolaadaan rag siyaasiyiin ah oo beesha habar gidir sacad u dhashay oo mataqaanaa ayaa dhaqaale fara badan ku bixinayo ninkii argagixisada shabaab u qaabilsanaa Mudug ina maalin guur ayaa ka qayb qaadanaya oo dadkan maxasta ah ee masaakiinta ah ee wada degan nabadda u diida waxaan rabaa inaan shakhsiyaadkaas qaybaha ay dagaalka ku leeyihiin soo bandhigo sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago xogta guud ee dagaalka iyo macluumaadada dheeriga ah ee laga helayo iyo sidoo oo kale markaasi wax walba aad uga baahan tahay dhamaantiin soo dhawaada muuqaalka dhamaantiina la gareeyo kuna soo biira bogogeena gaarka ah ee markaasi aad inagala socon doontaan aad u mahadsantiin aynu ku bilowno galbeedka Mudug wuxuu ka mid yahay gobolka Mudug waxaa la qiimeeyaa dirirtu meesha ay ka dhaxayso maamul goboleedka ay ka tirsan tahay qolyahan habar gidir ee sacad wadanka waxaa ka jirta abaar adaga ka jirta dadku waa reer guuraa xoolay wataan geelal bay wataan waxaa dhacday markay in reer guuraagu hadda waa dad Soomaaliyeed xuduudna ma kala leh dadka Soomaaliyeed maamul goboleeduna xuduud ma kala leh in la ogolaaday in ay ceelashana ka cabaan daaqana ay soo doontaan oo goldogob area xataa ay daaqa ka cabaan sida inagoo marka abaari dhacdo aynu deegaanadooda u gaarno wax kasta oo mataqaanaa qof muslina uu u baahnaado waa loo ogolaaday ceelashana waxa la yiri cabba ninkii gogashii ku dhigay ee ku soo dhaweeyay inaad fidmaysid oo fidma la doonatid waxay kalifaysaa in wixii lagugu soo dhaweeyay iyo nimcadii aad haysatid baad isku qoosatid waxa dhacday nimankaas in hadda meelaha dagaaladu ka socdaan waa Jicboor ereyadeeda waa Maygaagti waa saax qurun ereyadaas weeye in nimankaas nabadii ay diideen nagna war maxaad rabtaa geelasha waxaan rabnaa geelasha iyo tiknikadooda wada socoto inay mataqaanaa daaqaan war tiknikadan inta iska soo dhigtid oo hubkaan iyo qoryahan aad la ordisid soo dhigatid adoo faramaran oo geelaagii wata inta meeshaan cabtid laabo maya wax kale uma socdaan waxay rabaan tiknika iyo geel isla socda inta keenaan oo Jicboor agteeda yimaada inay ceel qotaan marka ninkaasi ma nabad buu rabaa mise fidmuu ka shaqeynaya ninkaasi nabad ma rabaa fidmuu ka shaqeynaya war walaalow joog war haddaad rabtid naq iyo daaq war imow bariga Mudug saas way ka jirtaaye galbeedka Mudug deegaamayntan iyo mataqaanaa guryahan aad dhisaysid iyo udubkan aad la ordisid George maya waxaan rabaa inay mataqaanaa ii cabaan oo halkaan aan ceel ka qoto oo deegaankan soo Puntland ma ah ma Galmudug baa nagna nimankaas waa lagala quustay intaas gogolooda la dhigay 10 gogolooda la dhigay intaas gogolooda la dhigay nagna hadda Mudug waa la isqaana markii Mudug waxa kaliya marka nabadda iyo waawaantu dhamaato la isku fahmo waa xabad wey waxa la isku fahmo waa xabad qofka aqliga markuu ka tago waxay wax ugu soo noqdaan waa xabada meeshaasna wiilal muumin aadan la yiraahdo degan colaadna looguma hanjabo haddii nabadda la diido oo gobasha lagu wada jiifsanayo la diido wiilal muumin aadan la yiraahdo indha gadguduudana degan oo aan asxaan aqoon nabadii markii gaalkacya la dhigay oo bandiirad la dhigay oo goldogob baa la dhigay odayaashii waa ka quusteen nagna shakhsiyaadka haddaan idiin sheegay ee habar gidir ee sacad
nin qaadka Soomaaliya oo dhan u soo dago oo xamar qaadka kontrabanka ay u soo dago ba saacadkii jifi kasta wuxuu u gaday technique u gaday calaadu ku rinaya ninkaas waxa la leeyahay waa musharax madaxweynaha galmudug liibaan shuluq baa la yiraahdaa musharax madaxweynaha galmudug raba inuu xukumo jifi kasta saacadana wuxuu u gaday technique ay calaadu uga horiyaan galbeedka mudug ninkaas waxa kula soo biiray oo kula jira sheekada ninkii haystay argagixisada gobolka mudug oo dhan oo ina maalin guur la yiraahdo oo isna saacad ah inuu reer Hiilowle yahay baan filayaa kan kale waa reer Hiilowle oo isna inta argagixisadii ka soo xuubsiibtay fidnadii bilaabay fidnadii wuxuu la doontay galbeedka mudug waxa u tagay islaan qaali shira la dhaho xildhibaanada sacda iyo wasiir fiqi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ugu tageen wisil way soo kaxiyeen xamar bay geeyeen bas hadda gaalkacyuu jooga baraxlay meel la dhuu jooga xaafadda baraxlay halkaas wuxuu ka shaqeynaya argagixisanimadii uu ka shaqeynaya wali kama tanaasulin inta miidiyaa soo fariistay fikirka argagixisanimada meel loogama tanaasulin labadaas nin way horta dadka colaada wada sacadna hadaysan iska qaban labadaas nin waxa xaqiiqo ah in colaadu ay dheeraan doonto oo mudug meel kasta oo hadda nabad lagu jooga ama bariga ha noqoto ama gaalkacyo ha noqoto in lagu kala carari doona dhici doonta hadaysan labadaas shar wada midna liibaan shuluq baa la dhahaayo qaadka Soomaaliya oo dhan baa u soo dago midna waxa la dhahaa ila maalin guura waa argagixisadii waa ninkii jeexdin lagu inta dhamay inuu ku soo duulo lagu baaba'shay markii dambana shabaab uu cararay saacad buusan xataa har u jiidin wisil buu inta soo weeraray buu wuxuu ku dilay gudoomiyay wisil wuxuu ku dilay xubno xildhibaana wuxuu ku dadkii saacadka haya wisil joogay oo dhan buu laayay dadkii saacadka haya wisil joogay xataa saacad har u jiidi mayo adigu qolyahaas hawshan wado waa shakhsiyaadkan idin sheegay marka xogihii ugu dambeeyay iyo macluumaadadii ugu dambeeyayba waa kuwana wixii maanta dhacay meydadkiiba goobtii daadsan iyaga diiday nabadda wiilashaas muumin aadan caana laga dhami mayo haday ay mataqaanay wax wada mataqaanay la diido in wax lagu wada cabo mataqaanay weel oo shacabka Soomaaliyeed mataqaanay ay wada noolaadaan wiilashaas muumin aadan waa wiilal mataqaanay indhagad guduud yaala cidna cabsi loogama qabo meel ay joogaan in mataqaanay ishag aan lagu soo xadgudbo ma ogolaanaya markay waa kana xogii ugu dambeeyay waa kuwana ila dhageysta faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal saaka aroortii ka bilaabmay galbeedka gobolka mudug dagaalkan oo ah mid xoogan ayaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ay weerar gaadna soo qaadeen maleeshiyada nabadiidka ah ee beesha sacad halka ciidamada ilaalada deegaankuna ay difaacanayaan dhulkooda diriyanka hubka dhacaya ayaana laga maqlayaa deegaano ka fogfog halka dirirtu ay ka socoto ciidamada labada dhinac ayaana kala helaya gurmadyo xoogan kuwaas oo qayb ka noqonaya dagaalka socda sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan halka dagaalka uu ka socdo ayaa sheegaya inuu jab weyn soo gaaray ciidamada maleeshiyada beesha sacad iyadoona hadda ay ciidamada ilaalada deegaanku ay ku gacan sareeyaan goobta dagaalka uu ka dhacayo muuqaalkan oo laga duubay goobta dagaalka uu ka dhacay waxaa ka muuqda meydadka maleeshiyada beesha sacad taasoo aad ka garan kartid jabka xoogan ee ka soo gaaray halkaas واجبkiisa laga waraabiyay kuwa ka dambeeyana saas oo kale baan u galeynaa ma garan imaada soorda saasaad wada soorda waa idinka soo daldalaya wax u taro waxa saakay sida aad ka arki kartaan muuqaalkan oo la duubay aroornimadii saaka xilli aysan soo bixin qorraxdu waxaa ka dhex garan kartaa cabsida ka muuqata maleeshiyadan iyagoona afka ku haya gaariga beebeega ee rag badan kala haray dagaalkii 25 bishan aad goobjoogayaal kale oo meesha ku sugan oo iyaguna muuqaalo soo duubay ayaa jiro oo ka hadlaya dagaalka horta waa kaasa markay sacad waa caadadooda weeye mar walbaba kaarka lagu xoqdaa mar kasta oo xasan sheekh maxamuud aad aragtidna sacadu lacag iyo hub soo siinayaa wuxuu dhahayaa mudug colaad ha laga huriyo marka sacad iyo habar gidirba iyo hawiyaba colaad mudug laga huriyo caana ku cabimayaan leelka suu cadaan uma socdeen ceel cadii mudug
aadi aad wiilashaas muumin aadanna deegaankooday joogaan cidna ku xadgudbimayaan lacagtanna way dhammaanaysaa sacdo lacagtan way dhammaanaysaa laakiinse qaxa baa idinka idiin dheeraan doono hadda xasan wuu tagayaa habar gidilay xasan hadduu tagayaa wallaahi waxa u harsan wax yar sidii sidoo kale uu kaar idinku xoqday idinkana soo waaliyey kuna jabteen waa dagaalkii shanaad afaraad oo isbuucan gudihiisa ay soo qaadaan saakayna aroorihii markay ahayd sidii shabaabkii argagixisadii ila maalin guur inta ciidankii shiriyey waa kii argagixisada ay shabaabka ah buu weerar soo qaaday jab baa ku dhacay adeer mudug colaadeeda iyo nabadeedu waa isku xiran tahay haddii galbeedka mudug ay xabadda ka dhacayso koonfur iyo barina waa colaad hal la ogaado ninawna haysdhihin galbeedka mudug ay xabad ka dhacaysaa sacad iyo waxaa isdagaalaya leelkase habar gadir iyo leelkase isdagaalayso waxba nagama gelin ninawna haysdhihin way isku xiran tahay ilaa iyo mudug afkiisa cadduun ilaa iyo mataqaanay bari ilaa iyo gaalkacyo isku xiran tahay haddii la diido in nabadda loo dayn waayo galbeedka mudugna meel kastay xabaddu ka bilaabanaysa runtaan idiin sheegay ku biyacaba ku seexda ku soo toosa dadkan waa isku dad waa isku DNA Soomaalidan cadaaladay u baahan tahay nabad inay ku wada noolaatay u baahan tahay cidda xabad wax loogama qaaday annaga inta nabadda mudug ka shaqayn jirnay waxa soconayna waa u jeednaa qolyahan xasan ma yimaadin xasan baa ka adag habar gidir xasan baa ka adag iyaga hadduu maanta habar gidir xasan iyaga wax u tiri lahaa maxay iga dhimi lahayd iyagii wuu barakicinaya xamar waad aragteen ogaya baayay anoo sacada anoo saleebaana dhulkii wuu ka barakiciyey xila ma hayaan habar gidir dowladda xasan kama hayaan saasoo ay tahayna inuu dab ku guray ku qanacsan soo socdaan leenahay waxaad ka heshaan waxbaha naga siinina mudug annagu xaniye intaas leegaan ku joognaa ama wiilka Cumar Maxamuud ha noqdo ama wiilka leelkasa ha noqdo soo socdaan leenahay xaqiiqada dhabtaana waxay tahay dagaalkan waxa hurinayo oo meeshan dadka ehelka isku dirayo oo nabadda diidan waa ninkaas tuuga ah ee qabqablaha ah ee liibaan shuruq la yiraahdo ee reer Hilowle ee mukhaadaraadka ka ganacsada ee mataqaanaa iisha qaadka u soo dago isaga sacadka jufiyaha sacad hubaynayo waxa kale colaadan hurinayo oo ka qayb qaadanayo ninka amiirka ah ee shabaabka ah ee ila maalin guur labada nin sawiradoodna halkaas ay kaga muuqdaan waa labadaas tuug sacad haday iska qaban waayaan labadaas nin annaga iska qabanayna dadka duulaanka ahna waa iyaga dadka mar walba jabayo agaya baaya kabteedii ma aragtay meedadka ka cararayana waa iyaga isceshada dadkan Soomaaliyeed ee mudug degan nabad bay wax ku yihiin nin kasta nabad buu laba nin ku leegyahay haddii nabad la waayo ninkay u daran tahay waa la ogyahay guul baan u rajaynayaa wiilashaas muumin aadan waxaan leeyahay deegaankiinana ilaashada nabadiinana mataqaanaayay cidna ka baryi maysaan dadka reer muduga ah ee beelaha kale aan dagaalka ku jirina waxaan leeyahay waxa laga waayay nabadii oo wax walba diiday oo maalin walba dagaal inta soo qaadaan ku jabayo haday maxay iga dhimi lahayd inta dagaal soo qaadaan guuleysanayaan dagaal kasta inta soo qaadaan ku jabayo oo meedadka ka cararayo oo nabadda u diidan galbeedka mudug waa sacad hadaad nabad ka shaqeynaysan sacad ka keena nabadda annaga nimankaas muuminaadan iyaga galbeedka mudug nagu matalo iyaga mas'uuliyadda saaran way noo qabsamayaan annaga idinka idiin qabsama aysan ahayn Soomaa adeerna qorigiisu biyo kama dhacaan wiilka muumin aadan xaq buu ku dhimanayaa halkan kale wuuna isdifaacaya liibaan shuruqna waxaan leeyahay sidaas galmudug madaxweyne uga noqon maysid galmudug madaxweyne qabqabla dagaal baa tahay dhiig sokeeyaanad gashay dagaal la sokeeyaanad ku jirta madaxweynaha galmudug waa ka mamnuuc madaxweynaha galmudug waa mamnuuc uu ka yahay liibaan shuruq waxba sacda soo hubayn waxba colaadaha ka kicin gobolka mudug ana halkan kaale xildhibaanana ku leh madaxweyne ku-xigeenka galmudugna qaato oo mareexaan soo niman daarood Ismaaciil ma noqonaysid madaxweynaha galmudug ha ka yaabin ama cayr baa noqonayo ama mareexaan baa noqonayo ama saleebaan